sidoo kale dadku adeegyo dawladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka wixii ay karta hadba inay dadka u adeegto midda hadda ugu dambayso laga dhawaajo ah masiibada fatahaadda beledweyne ka taagan dawladda waa ka gaabisay aniga ma gara karo sida oo madaxdeena iyo dawladdeena iyo hay'adaheena dawliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka Soomaaliyeed ay ugu sharaxi karaan dawladdu malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin taalooyin ay ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa ma aha taalada inay waa xunta aan leeyahay laakiin malaayiin dollar oo taalooyinka lagu dhisana dawladda waa awoodaa way soo heli kartaa dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhammaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saaran yihiin waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayane dawladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaraan hala keenay iyo hebel qaaraan ha keenay iyo kan ha keenay dhehaysa yani in la isqabadsiyaa loo baahan waxay daliil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dawladdeena ka maqan dadka dhibaatada iyo culayska ay qabaan mushaakilaadka ay qabaana ka maqan marka waxaan leenahay dawladdeena inay ku baraarugsanaato ee wax dawlo waxay macna ku leedahay dawlad u tahay markay ka jawaabto dadka intay kari karto wixii aanay kari karin maxay uu dawladdu u yeeli weyd dawladdeena waa dawlad daciifa dawlad curdana hadda dhalanayso waa dawlad tabar yar dhaqaaluhu ku yar yahay wax badan imkaan cadaawo badan balaayo badan ku dhinacyo badan ka haysato waa qirayna waxaas oo dhan laakiin haddana waxbaan ku tuubsannahay weli ay karaanaa jiro wixii ay kareen inay karaanaan rabnaa wixii ay karaan ay awoodi karaan inay kasaanaan rabnaa kasmadii waa waxaan tuubsannahay dawladdu inay ka maqan tahay kartiyaradii ku eedayn mayno laakiin kasmadii iyo dareenkii iyo shucuurkii Soomaalinimada iyo la tacaadufidii dadka waayo waxa aan ku tuumsannahay annaga inay maqan yihiin dawladdu waxa ay karta ha karto waxa ay kasinna ha kasta waxa ay inay kasta ay tahay ha kastaan leenahay marka maanta waa maalintaas weyn wixii faahfaahinta iyo structure-ka mas'uuliyiinta madaxda loo doortaan u deynayna madaxda iyo structure-ka la magacaabayaan lixdan xisbi meesha taagan committee-dan ku nahay waa ku shaqaynaynaa sidaan madax u yeelanay madaxdeena ku ixtiraamayna inta kalena structure walba shaqadiisa waajibaadkiisa cadow loo qabanaya maslaxadda ummadan iyo dawladnimada dalkaanaan heshiis ku nahay xumaan heshiis ku mihin dulmi heshiis ku mihin qaanuunka in la dhinac maray heshiis ku mihin in la dhowro cidii dhinac maraysana la qabto shaatiga la soo qabto liiraawa waa ka leexatay qaanuunka liiraan heshiis ku nahay wanaag iyo horumar iyo niyad samaanan heshiis ku nahay colaad iyo xumaan iyo wax dumin iyo wax qaribaad heshiis ku mihin qofkii u yaqaano waxa waa sharciga waa la khalday hal la toosiyo in la yiraahdo inay xumaan tahay qofkii u yaqaano Allah soo hanuuniyaan